بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن عشر كين وحو كسب سيهي love history وشيكو تعيل please don't deceive me فضلا هاي خيامين أيا شيكا دا عوان كيدا اللي دهدا please don't deceive me فضلا هاي خيامين part 1 قيبتي كواد بن قادنينا Okay, together please. aynu wada soconno. Ann and Tom. Ann iyo Tom. Ann waa gabadha. Tom waa wiilka. Ann and Tom. Ann iyo Tomba were classmates. Waxay ahaayeen isku fasal. But no same condition. laakiin isku xaalad may ahayn. Ann was from high class family. Ann waxay ka soo jeeday waa inantee. qoys ladan oo lacag leh because maxaa yeelay her father aabaheed was very famous businessman waxa uu ahaa nin ganacsada ah oo caana who had a lot of property kaasoo haystay hanti badan Tom wiilku was from wuxuu ka soo jeeday low class family qoys dabaqada hoose ah oo dan yara because maxaa yeelay his parents waalidkii lived in bush waxay ku noolaayeen aqal Somali ama coosh bay ku noolaayeen waalidkii he lived with his uncle wuxuu la noolaa adeerkii who had a lot of children kaasoo haystay caruur badan and lived from hand to mouth waxaanay ku noolaayeen af ilaa gacan macnaha wixii la soo helo waa la cuni jiray qaadama dharge Tom's uncle Tom adeerkii had small shop waxa uu lahaa dukaan yar and he couldn't pay school fee lacagta dugsigana iskamuu bixin karaynin Tom but laakiinse he was waxa uu ahaa Tom very clever mid xariif ah and always got badanaana wuxuu keeni jiray high mark buundo sareysa ama buundo wanaagsan Ann shocked Ann waxay ka naxday waa inantii about this young boy's circumstance duruufta wiilkan yar haysata and decided oo waxay go'aansatay to help him inay caawiso isaga she brought gifts to him hadiyado ayay u keeni jirtay isaga especially gaar ahaan waxa ka mid ah hadiyadahaas clothes dhar shoes kabo and learning materials iyo agabka waxbarasho every time mar walba way u keeni jirtay and said to him waxaanay ku oran jirtay isaga Tom this is present for you tani waa hadiyadaadii hold it qabso She also paid sidoo kale waxay ka bixin jirtay his school fee lacagta dugsiga Tom quickly Tom si dhaqso badan became shining wuxuu noqday mid ifaya oo dhalaalaya and smarter than kana xaraga badan the other boys in the class wiilasha kale ee fasalka la dhigta one Ann's friend markay saaxiibadeed Jennifer la oranayay asked ay weydiisay saaxiibadeed why you helped the boy maxaad wiilka u caawinaysaa sabab ayaad wiilka u caawinaysaa Ann answered Ann waxay ugu jawaabtay I wanna make him a man nin inaan ka dhigan doonaya Jennifer how sidee Ann waxay tiri he has good hope rajo wanaagsan buu leeyahay but laakiin he has no money lacag ma haysto soo sidaa daraadeed my money makes him a man lacagtayda ninka dhigaysa Jennifer do you love him miyaad jeceshahay isaga ilaa adigan caawinaya ilaa adigan lacag siinaye Ann waxay tiri it's too early now waad la soo dhaqsatay waa su'aal xilli hore timaaday Okay qaybtii koowaad halkaas bay nagu eegtahay part 1 la soco qaybta labaad insha Allah
new words ereyada cusub aan ka soo saarnay sheekadeenan classmate isku fasal condition xaalad high class family qoys ladan oo lacag haysta property hanti low class family qoys dabaqada hoose ah bush aqal Somali coosh hand to mouth af ila gacan clever xariif shocked naxdin circumstance ظروف decided go'aan present hadiyad shining dhalaalaya ifaya quickly si dhaqso badan